بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن داوديال ميل والبو جوجتان كسو دوادا وركا تلفزيونka Somali Cable oo idin kaga imaanaya stuudiyaha telefishinka uu ku leeyahay magaalada Muqdisho qodobada warka aad ku daawan doontaan waxa ka mid noqon doona xildhibaanada baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa ay doorteen gudoon cusub kaas oo bedeli doona Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo cadaadis soo foosaaray kadib ku dhawaaqay inuu iska casilay xilkaasi wasiirada beeraha ee dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada dalka ayaa waxa ay kulan arrimaha beeraha looga hadlayay ka qayb galeen magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay xildhibaanada baarlamaanka ee Hirshabeelle ayaa dalbaday in fasax la siiyo si ay ugu gurmadaan dadka ku dhibaataysanaya deegaanada kala duwan ee Hirshabeelle gaar ahaan shacabka biyaha ay ku harqayeen magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan kulan lagu soo dhaweynayo musharax madaxweyne Dr. Maxamed Salaad Cali Qoryooley ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Bloomington oo ka tirsan gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka qodobada iyo qodobo kale oo dhowr ah oo ku saabsan wararkii ugu dambeeyay Somaliland ayaa daawan doontaan anigoo Maxamed Ciise Maxamuud ayaa idin la socodsiinaya balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan qadar xayeysiisa وهاجاك داود يا لنتان وحي أهايان قضبضا وركا تلفزيونكا ugu doorka roon markana waxaad ku soo dhawaataan warka telefishinka Somali Cable oo idinkaga imaanaya stuudiyaha magaalada Muqdisho gudoomiyaha baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa loo doortay Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan kadib markii doorasho ay ka dhacday magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya taa oo ay codeeyeen xildhibaanada baarlamaanka warbixinta warkan waxa ay noo faahfaahinaya wariyahana Cabdicasiis Cabdullaahi Riyali oo goob joog u ahaa doorashadii maanta ka dhacday xarunta golaha shacabka ilaa iyo 12 murashax ayaa u taagnaa qabashada afhayeenka baarlamaanka Soomaaliya markii doorashada ay bilaabatay ugu horreyn Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe ayaa iscasilay inta codadka aan la bilaabin dabadeed 10 murashax ayaa loo codeeyay waxayna kala heleen codad kala sareeyay taas oo keentay in wareegga koobaad ay ka soo gudbaan 4 murashax ee kala ah Maxamed Mursal xildhibaan Ibrahim Isxaaq Yarow Cabdicasiis Lafta Gareen iyo Shariif Maxamed Cabdallah natiijada ayaana waxay noqotay in xildhibaan Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo hadda ah gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya uu helay codad gaarayay 147 cod halka xildhibaan Ibrahim Isaaq Yarow uu helay 118 265 ayaa codeysay 265 ayaa codeysay madaxweyne Ibrahim Isaaq Yarow wuxuu helay 118 مدن محمد مرسل عبد الرحمن وهيري بقول أفرتن يتضبط وعاكو جوليسي قدوميها قلاها شعبك مدن محمد مرسل عبد الرحمن guddoonka baarlamaanka Soomaaliya ayaa hadal siiyay xildhibaan Isaaq Ibrahim Yarow oo lagu guuleystay xilka guddoonka maadaama uu ahaa labadii murashax ee u dambeysay ee tartamaysay waxaana goobta ka jeediyay hadal kooban gudoomiyaha cusub ee golaha shacabka jamhuuriyadda Soomaaliyeed ee la doortay loo doortay walaalkay mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan waxaan leeyahay hambalyo soo dhow waxaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala kadib mahad balaaran u soo jeedinayaa xildhibaanada sharafta leh ee golaha shacabka Soomaaliyeed intii codkooda isiisay oo ay dooratay iyo inta aan codkooda isiininba dhammaan waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin waana kalsooni weyn baan qabaa kabtankaygu wuxuu yahay tartankan waa runtii meesha aan soo gaarnay waad arkaysaan odayaashii iyo muxuu ahaa familkii cidda madaxda u ahaydna halkay muxuu iskugu tageen waad arkaysiin laakiin waxaan leeyahay haddaad dhaxdhaxaad ka ahaan lahaydeen muxuu ahaa isbedelka iyo rajada ummadda Soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa wixii aan ugu talagalay inaan ku kordhiyo way suuroobi lahayd haddana walaalkay baa ku guuleystay waan la garab taaganahay gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa hadal kooban munaasabada ka jeediyay oo mahadnaq u badnaa
mudanayaal marweyn xildhibaanada sharafta leh waxaan u mahadcelinayaa dhammaan xubnaha golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya inta codkooda isiisay iyo inta aan isiin intaba sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa guud ahaan musharaxiintii u tartamaysay qabashada xilka gudoomiyaha golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya dhinaca kale waxaan u mahadcelinayaa iyana dhammaan saaxiibadayda iyo taageerayaashii igala shaqeeyay dadaalkii aan u soo galay kamid dhalinta tartanka doorashada gudoomiyaha golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudanayaal marweyn xildhibaanada sharafta leh waxaad igu aaminteen mas'uuliyad culus oo aad u ballaaran una baahan in aad loo ilaaliyo gudashadeeda Cabdicays Cabdullaahi Maxamed Cabdicays Somali Cable magaalada Muqdisho madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa soo gaaray magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan qaybaha kala duwan ee bulshada iyo maamulka gobolka Hiiraan ayaa garoonka diyaaradaha Ugaas Khaliif International ku soo dhaweeyay madaxweynaha dowlad goboleedka Hiirshabelle Maxamed Cabdi Waare madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu sidoo kale soo indheeyay qaar kamid ah dadka barakacayaasha ee ku sugan duleedka magaalada Beledweyne sidoo kale madaxweynaha ayaa waxa uu isla markaana soo indheeyay biyaha fatahaad oo ka sameeyay webiga Shabeelle dhaxmar magaalada Beledweyne ugu dambeyntii madaxweynaha ayaa waxa loo soo galbiyay xarun isla markaana lagu talagalay in uu halkaas lagu soo dhaweeyo ugu horeyntii halkaas waxa ka hadlay madaxweynaha dowlad goboleedka Hiirshabelle Maxamed Cabdi Waare هذا كسر أركتي إيربورت وصار أركتي فتحاتي ولي أنه كسر نقطة وصار أركتي ورويلا لكرويلا للواو إنه وحن هو إذا تكتم تهي إن وحلوش أنه حقي من نوقف فلان أو كلام نوقف فلان أو أنسلان هاي وحي أسرتين واحد الشين إماتك النوصل ayaa noogu filan sida aad noo qiimeysaan noogu filan sida aad u naxday Beledweyne noogu filan waxaan rajaynaynaa awaamirta aad bixisay iyo baaqyada aad dirtay inay miro dhali doonaan madaxweyne waxaan kaliya rabaa inaan cudurdaar ka bixiyo odayaasha halkaan fadhiya oo waqtiga cariiriga dartood qof kasto meeshaan fadhiya beelow matala dagaal ka yimid inuu madaxweynihiisa la hadlo rabay waa uu cudur daaraya raalli ahaada waqtiga cariiriya madaxweynaha waa jeclaanahay inuu xoogaa nala go'doomo nala bariyo caaw roobdo eerborka laga bixi waayo waa iska rabi lahayn sidoo kalena waxa halkaasi ka hadlay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaana uu tilmaamay in isla markaana gurmad degdeg ah ay la soo gaari doonaan dadka shacabka ay dhibaataysan magaalada Beledweyne inaan samaysano kulliga inaan qaadano inaan la shaqeyno dowladda oo gacan siino waxa loo wixii dowladda carqaladeynaya oo aan dhaqaano muxuu ku soo jirnay aan joogino ama aan kor tagno ama aan la dagaalamo ay ugu dambaysan shabaab ay ugu dambaysan qolooyinkan musiibada qaybta ka ah oo diiday dalkii isu maro oo maalin walba qarxinaya oo leynaya shacabkeenna hadday duqay yihiin hadday caruur yihiin hadday dumar yihiin aan u naxayn inaan ka wada tagno kulligeen kuwooda aan isleenahay waa soo jiidan karnaa ama waa keeni karnaa baan u baqanaa oo waan u sheegnaa inay ka soo tagaan waana marin hagaagin waana khalday dhalinyaradaas waa dhalinyaradeenii inay ka soo tagaan kuwa islaamiga ah iyo kuwa dhibka wada iyaga naftigooda waxaan leenahay ka soo taga joojiya dhibaatada Maxamed Cabdi Baadil Somali Cable TV magaalada Beledweyne shir ay ka qayb galeen wasiirada beeraha ee maamul goboleedyada iyo wasaaradda beeraha ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay warbixinta warkan Maxamed Cabdiraxmaan Cabdulle ayaa inooga soo diray magaalada Baydhabo waxaa maanta ka furmay shirweyne looga hadlayo arrimaha beeraha Soomaaliya waxaana shirkaasi garwadeen ka ah wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladda federaalka Soomaaliya iyagoona ay ka qayb galeen dhammaan wasaaradaha beeraha iyo waraabka dowlad goboleedyada dalka ujeedada shirkani ayaa ay tahay
sidii loola dagaalami lahaa cayayaanka dila abuurka beeraha. Xogeyaha joogtada wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cali Ismaaciil ayaa sharxay doorka ay wasaaradda beeraha dowladda federaalka ay ku leedahay shirkani. saas darteed waxaan rajaynaynaa in si fiican la isu fahmo sidii wax loo qaban lahaa, sidii looga hortagi lahaa, haddana aan ogaano warbixinada ay keeneen, warbixinada ay sidaan, warbixinada ay soo jiidanayaan qaybaha kala duwan ee ka yimid dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexeba aan aad ogaano meherka la marayo. saas darteed barnaamijka taas ku saabsan yahay. agaasimaha wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdiwahaab Siraaji ayaa isna sharxay muhiimadda kulankan iyo sida loola dagaalami karo cayayaanka dila abuurka beeraha. oo isku kooyeen dhammaan istiidida Puntland, Jubaland, Shabeelle, Koonfur Galbeed oo martibilankay barnaamijka soodiyo barnaamijkii lamaad la kaga wado oo lagu hadalo cayayaankan oo la raaw foolum worm la raaw cayayaankan la raaw foolum worm kuma jaan waliyad warbixin si mayba foolum army worm yar dixri waay dixsigaas oo waxyeello adag ingiriisiga beero balka mise beero waraabka mise beero rainfieldka intaba saameeyo dixrigaas hadiiray wadanka gudaha tilooga burburkii. Kusimaha madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Xasan Xuseen Maxamed Xasan Eelay oo ka qayb galay shirkani furitaankiisa ayaa isna ka hadlay arrimaha beeraha iyo dhibaatada cayayaanka ay ku hayaan, isagoona dhinac kale wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladda federaalka Soomaaliya ka codsaday inay gacan ka geysato fatahaadda webiga Shabeelle oo dhibaato ku haya dadka ku dhaqan deegaanada Shabeellada hoose. eedeeda walilaha mahadsantiin inigeeka ku hadalo dhibaato oo Iran tan ka daran oo Soomaaliya ku teegin inay koob ku atay ku hadalo ma aragay insha Allah taala wala rajayna dadka arintaas ku hadalo in safayl man falanqaya wal oo dadkum idalkum ma antaraan wax ku saaran beledweyne wali ku teegin aragayta daba ku teegin wabiga fataada umada ka dhabaysan ilaahay wali warsadaan umadaas ilaahay Ghafuur Rahiim ka kaliya deeqo kor in ilaahay Ghafuur Rahiim ka jibal khayr qaban fuul ya ilaahay tuugan dad walaalnimo ay u dhibaysiin dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel biyo roog wali faraana dadkaas in la gargaar. Maxamed Cabdiraxmaan Cabdulle TV-ga Somali Cable magaalada Baydhabo. xildhibaanada baarlamaanka Hirshabeelle ayaa dalbaday in fasax la siiyo si ay gurmad ugu fidiyaan shacabka deegaanada kala duwan ee Hirshabeelle ku dhibaataysan, gaar ahaan shacabka ku dhibaataysan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. warbixintan waxaa magaalada Jowhar inooga soo diray wariyaheena Maxamed Ibraahim Jimcaale. mudanayaasha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa maanta u fariistay dib u eegis lagu sameeyay wax ka bedelka dastuurka dowlad goboleedka Hirshabeelle. gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle Sheekh Cusbaan Barre Maxamed oo shir gudoominaya kulanka ayaa waxa uu xildhibaanada u sheegay in dastuurka waxyaabo badan laga bedelay, balse taasi kadib waxa dhacday in xildhibaanada baarlamaanka Hirshabeelle ay doortaan gacantana u taagtaan in ay doonayaan in baarlamaanka la xiro oo kalfadhiga baarlamaanka gabi ahaantiisba albaabada loo laabo dibna la isugu soo laabto kalfadhiga afraad ee baarlamaanka Hirshabeelle. xildhibaanada ayaa taasi ku saweeyay kadib markii buuq ay ka fatahday magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan, waxaana xildhibaanada baarlamaanka Hirshabeelle ay sheegeen in ay doonayaan in ay u baxaan magaalada Beledweyne si ay wax ula qaybsadaan dadka ka soo jeeda gobolka Hiiraan ee dhibaatadu ay saameysay. xildhibaanada oo badankood ka soo jeeda gobolka Hiiraan la hadlay warbaahinta ayaa waxa ay sheegeen inay aad ugu xun yihiin dhibaatada ku haysata shacabka gobolka Hiiraan magaalada Beledweyne. sidaad ogsoontihiin ba xildhibaanada waxay u kala qaybsamaan Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan. guddoonka anaga maanta hogaamiyo oo maaragtay aan dooranay codkeena ku yimid saddexdooda gudoomiye Cabdi Xuseen, gudoomiye Canab iyo gudoomiye Sheekh Ismaan Barre Maxamed. saddexdooda waxay ka soo jeedaan deegaanka Hiiraan. maaragtay magaalada Beledweyne way nooga aqoon badan yihiin maanta meesha dhibta iyo rafaadka uu ka socdo. ayagana waxay rabaan maanta inay afka uun ka hadlaan oo maaragtay ay dhahaan dadka loo gurmado inay tilaab qaadaan ma rabaan. runtii shirkii baarlamaanka ayaa wuxuu soo dhamaaday saacad ka hore. qodobo muhiim ah ayuu looga hadlay maanta, sida in loo gurmado abaarahaas ku dhuftay gobolka Hiiraan. runtii musiibada ka dhacday gobolka Hiiraan khaasatan magaalada Beledweyne waxaan ku tilmaami karnaa inay tahay musiibo qaran. webigii ku soo fatahay
dhibicdii roobkii oo ka socota kor dadkii oo farabaxay runtii waa musiibo aad iyo aad yani u dhib badan annagana ka xildhibaan ahaan waxa aad iyo aad noo saameysay dareenka yani shacabka ku jiro inaan markasta la qaybsano qoraxda la taagnaano dhibicda roobka la qaybsano runtii ka dareen ahaan waxaan muujinayna kala xildhibaan ahaan waa arintaas runtii meesha ka jirto dhammaan waxaan ugu baaqayaa qof kastoo ka soo jeeda sida jaaliyadaha yani ka soo jeeda maamul goboleedka Hirshabeelle dawladda federaalka ah inay runtii ka qayb qaataan yani sidii lagu badbaadin lahaa shacabkaas baarlamaanadii dawlad goboleedka Galmudug Puntland Jubbaland dawladda federaalka inay u gurmadaan dadkayni annagana aan dhahno baarlamaankii aan fadhinayna waa shaqaynayna waxayna la noqotay wax aan noo cuntamaynin saas darteeda guddoonka baarlamaanka cod buu qaaday oo ah in macnaha fasaxii laga soo hormariyo codkina wuxuu noqday cod buuxo saas darteed waxaa xildhibaanadii aan baaq ugu jira macnaha maadaama baarlamaankii uu soo xirmay in dadkii loo gurmado oo dadkii walaalahooda ninkii muxuu ahay wax gacan ka bixin kara ninkii macnaha dadkii qofkii biyo ku dhacay ka bixin kara dadkii banaanka jiifaan roob uu hayaa wax ilaa hadda gacanta loogu hayna male marka ugu horeysa haddaan nahay xildhibaanada Hirshabeelle ka soo jeeda waxaan xildhibaan ku nahay waa bulshada waa ummadda waa inaan baxno oo aan ka qayb qaadano dhibaatadaas ka qayb qaadano dhinac kastaba ayaan u soo jeedinayaa xildhibaanada Hirshabeelle gaar ahaan iyo guud ahaanba annaguna waa la qaybsanaynaa waa dadkeenni wax baaba'aya oo dhibaatadu ay ku dhacday caruurteenni waayeelkeenni culumadeenni waxgaradkeenni dhul dhan ayaa masiibo ku dhacday ilaahayna waxaan ka baryaynaa in ilaahay masiibadaas uu ka dulqaado intii dibka ku gaaray ku geeriyootay ilaahay samri iimaan Allah ka siiyo ummadda ay ku dhimatay wixii ka samata baxayna ilaahay waxaan uga rajaynaynaa meel dhow inuu ilaahay wax u soo dhigo waxaan nahay xildhibaanadii ka soo jeedo maamul goboleedka Hirshabeelle magacayga waxa la yiraahdaa Tiriig Ibrahim Axmed waxaan ahay xildhibaanad u dhaaratay dadkeeda iyo dalkeeda si qaasatan ah oo tiraayn ku jirto oo aqliga shaqeynayo ku jiro waxaan rabaa dawladda federaalka si xoog badan inay uga qayb qaadato dhibaatada ka dhacaysa Hirshabeelle qaasatan magaalada Beledweyne maxamed ibraahim jimcaale amoore Somali Cable TV Jowhar wasiirka wasaaradda shaqagelinta iyo arrimaha bulshada Soomaaliland ayaa waxa uu gudoomay agab dawladda China ay ugu talagashay in lagu adeego agoonta ku dhaqan magaalada Hargeysa gaar ahaan xarunta agoonta ee magaaladaasi Hargeysa warbixinta warkan Cabdi Fataax Ismaan oo ku sugan magaalada Hargeysa ayaa inoo soo diray iyadoo wali sii socdo kulamadii kala duwanaa ee wasaaradda shaqagelinta iyo arrimaha bulshada ugu talagashay sidii dib u habayn iyo waliba kaabisul xeerka shaqaalaha rayidka ee Soomaaliland ayaa maantana wasaaradda shaqagelintu kulan lagu dardargelinayo kor u qaadista iyo wali wax ka bedelka xeerka shaqaalaha rayidka loo qabtay maamooyinka ka shaqeeya hay'adaha kala duwan ee ka howlgala Soomaaliland iyo waliba hablo aqoon-yahano iyaguna fakarkooda ku darsan doona sidii xeerkan u noqon lahaa mid dhammaanba anfaca shaqaalaha yar rayidka kulankaasina ugu horeyn waxa ka hadlay Cawaale oo ka tirsan saraakiisha wasaaradda shaqagelinta iyo arrimaha bulshada dhankeeda wasiirka shaqagelinta iyo arrimaha bulshada Marwahinda Jaamac Hirsigaani ayaa iyaduna halkaasi ka hadashay iyaduna ka soo qaybgalayaasha ka codsatay inay aqoontooda ku kordhiyaan wax ka bedelka iyo kaabista wasaaradda shaqagelintu ku wada xeertay diiwan ee soo baxay 2004 ee shaqaalaha rayidka وانا حير مسيرية وانا دوركي هوايك كلها هي إنك تقيم قاطع. أنا لا وحوي وهبلي غرق Somaliland لبنتي سي أما أقويها كذي إن هديين قار شقية أما حيد هوش شقيا أما برايفت هوش شقيا يأقويها ننتي انتبه إن وحين كم هذا علينا يا إذا كان أتيبستين ونأكسن وقت جينا قالق أياد نسيسين وحن إذا كرهتين يا إن شاء الله وحي أنو إذا كحولنا أو أها أقون يواي أرجنمو إن أتكو بيرين دونتان حير كان صدن يكو لبدي كوني أفرتي صباحي كاس أو أديجا شغالها الريد كأ يلا شقيها انتبه إن مروين دمانتين ودمات سنتين مرلبات كوحن إذن كرتين يا إن شاء الله تعالى إن عاد نقطان قوة إبفرة أما إفتيمية حقوق أي هوينك غير Somaliland وليهين شقة إن لبصي
dhanka kale wasiirka shaqagelinta iyo arrimaha bulshada marwahinda jaamac xirsi gaani ayaa kuraas miisaan kabo iyo weliba qalab sportis ka guddoon mas'uuliyiin ku hadlayay magaca qunsuliyadda China ee Somaliland oo qalabkani guddoonsiya xarunta dhaqan celinta ee Maxamed Mooge taas oo wasaaraddu gacanta ku hayso ugu horreyn halkaasi waxa ka hadashay Filsan oo kamid ah agaasima waaxidiyada wasaaradda shaqagelinta iyo arrimaha bulshada dhankiisa caawil oo ka qayb qaatay sidii qalabkani loogu wareejin lahaa xarunta dhaqan celinta ee Maxamed Mooge isla markaasina waftigaasi China la socday ee isaguna halkaasi ka hadlay waxa maanta booqasho noogu yimid dawladda dalka China oo mar horena noo dhisay dhisme 2 qol ka kooban iyo meel ay ku cunteeyaan caruurtu waxay noo keeneen hore raashin iyo qalab ay caruurtu ku ciyaaraan maantana maalintii waxay ballan qaadeen inay qalabayn doonaan maantana waxay noo sidaan sidii ballanqaadkoodu ahaa qalabkii iyo kabayaal ay caruurta u sidaan diriiskii waan uga mahadcelin waxa sharaf iyo milgan oo ah inaanu maanta agabkan ku wareejino wasaaradda shaqagelinta iyo arrimaha bulshada oo wasiiradii ay nala joogto waxaanu ku wareejinaynaa agab ah kabo kuraastii iyo miisaskii cuntada iyo kuwii kalaasyada isugu jiray agabkaasi wuxuu inooga yimid dawladda China isagoo laynoo soo mariyay safaaradda iyo xafiiska community-ga Shiinaha uu ku leeyahay magaalada Hargeysa dhankooda mas'uuliyiintan ku hadlayay afka dawladda China ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay iyaga oo sheegay inay ku faraxsan yihiin inay xarunta dhaqan celinta ee magaalada Hargeysa guddoonsiyaan qalabkani sidoo kalena ay ku faraxsan yihiin inay ka qayb qaataan horumarada ka socda Somaliland gabagabadiina wasiirka shaqagelinta iyo arrimaha bulshada marwahinda jaamac xirsi gaani ayaa iyaduna halkaasi ka hadashay iyaduna u mahadcelisay mas'uuliyiintan ka socda dalka China ee qalabkani ku wareejiyay xarunta dhaqan celinta ee Maxamed Mooge yaha community-ga dalka China runtii waxaan farxad ii ah inaan maanta kaga wareego halkan Jin Xiaoping oo ah gudoomiyaha community-ga dalka China u jooga Somaliland caasimadda Hargeysa kaas oo hore u suura galiyay in ay qabsoonto ama ay naloo dhiso dalka China noo dhiso hoosadan aynu fadhino ee cuntada ee loo dhisay caruurta dhaqan celinta xarunta Maxamed Mooge iyo 2 kalaas oo iyaguna fasallo ay wax ku bartaan aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa guud ahaan dalka China iyo Jin oo isagu suura galiyay عبد الفتاح عثمان تلفزيون عالمي Somali Cable Hargeysa kulan lagu soo dhaweynaya musharax madaxweyne Dr. Maxamed Salaad Cali Qoryoole ayaa lagu qabtay hotelka Double Tree oo ku yaala magaalada Bloomington oo ka tirsan gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka warbixinta warkan waxa inoo soo diray wariyaheena Shire Warsame Galbeete xaflad qurux badan oo lagu soo dhaweynayay musharaxa maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Dr. Maxamed Salaad Cali Qoryoole ayaa waxa lagu qabtay mid ka mid ah hoolasha shirarka ee magaalada Minneapolis xafladaas oo jaaliyadda Soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaan jaaliyadda Puntland aanay u kala harin ayaa ugu muujiyeen Dr. Maxamed Salaad Cali Qoryoole taageerada ay u hayaan shakhsiyaadkii halkaas ka hadlay oo waliba u muujiyay taageerada Dr. Maxamed Salaad Cali waxa erayadoodii kamid ahaa waxaa sharaf inoo ah madashan quruxda badan oo ay dhalinyarada kambeynka ama musharaxa Dr. Maxamed Salaad Cali Qoryoole caawa halkan noogu soo agaasimeen aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin ogaa yaroo dardaaranana waa siinaya waxaan ugu soo qabanayaa dardaarankayga marka laga hadlaayo kelmadda la yiraahdo leadership macnaheedu leadership muxuu yahay leadership sidiisa waxaa la yiraahdaa waa hagid joogto ah ee madaxweynaha iyo prime ministerka iyo wasiiradu ay ku hayaan colalka hoos yimaada waa soo ururinta xogta xaaladda falanqaynta qaadashada go'aan ku habboon iyo tabinta loo taliyaasha waajibkooda
hogaaminta maxaa laga rabaa inay leedahay hogaamintu 5 shuruudood bay leedahay inay tahay mid adag degdeg ah liican halku dheg leh qarsoodi leh shantaas waxaa weeye waa bayska ninka madaxda oo leadershipka ahi uu gacanta ku qabsado oo uu dadku hogaamiyo doctore annagu haddaan nahay reer Minneapolis iyo reer St. Paul magaalooyinka bataanaha ah waxaan ku leenahay soo dhawow waa ku garab taagannahay waa ku ducaynaynaa waxaan rajaynaynaa biidnillaahi alkariim in ilaahay kugu guuleeyo annagoo aaminsan inaad wax badan ka qaban doonto wax badan ka bedeli doonto wax badanna u tari doonto dadka Puntland ku dhaqan iyo guud ahaan Soomaaliya ditorow ilaahay waxaan kaaga bariyay haddaan ugaas maxamed ugaas jaamac baruur ahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha kula garab galo ummadda Soomaaliyeedna dhibka iyo rafaadka dhalinyaradii odayaasha iyo hooyooyinka heestana waxaan ka filnaynaa inaad ka qaadidood indhaha u wada furtid dhammaantood oo halka dhigtid soo dhoweyntaasi ayaa waxaa ka dhex muuqatay soo dhoweyn ay ku dheehan tahay maansooyin iyo weliba taageerada ay u hayaan jaaliyadda iyagu ku dhaqan stateka Minnesota Dr. Maxamed Salaad Qoryooley wargeysiga garasha dheer waa u gogol dhiga ogobaado curatay buu gawe ogolesa haddana gool dhaqayeelay buu gowraca wagadi odayadeniye garasha raac oo gurtade reer Puntland oo lagata noqo gobanimaad iyo sharaftooda gudubusedo maxamedow halgankagu ha ahaado ceelango'in ku guulayso marka dadka Puntland jooga dadka Soomaaliya meel walba jooga waxa idin leeyahay hadii aad really tihiin dad runtii haddaad tihiin dad wadankooda jecel Soomaaliya oo dhan la hadlaya gaar ahaan dadka Puntland wadankiina haddaad jeceshiin horta nasiib aad leedihiin musharaxiin badan aad qabtaan oo kulligood yihiin dad qualified ah laakiin waxa idin sheegaya Dr. Maxamed inuu yahay one of the dadka ugu sareeya isleeyahay musharaxiinta soo baxay oo Puntland nasiib u yeelatay intaa kadib jaaliyadda Soomaaliyeed iyo gaar ahaan jaaliyadda Puntland oo aan u kala harin ayaa codbaahiyaha waxa ay ku soo dhaweeyeen musharaxa maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Dr. Maxamed Salaad Cali Qoryooley waxaana ereyadii musharaxa ka mid ahaa waxaan caawa hortiin isu soo taagay anigoo kalsooni weyn ku qaba inaad igu taageertaan hawshan baaxadda leh oo aan rabo inaan wajaho anigoo wax damac gaar ah iyo dan gaar ah toona aan ka lahayn ee iga tahay kaliya badbaadinta dalkeennii aynu wada jeclayn ee Puntland dhulkii odgoonaa markaan arkay inaan ceelna u qodnayn cidna u maqnayn waxaan maantay idin caddaynayaa inaan ahay musharax u taagan doorashada Puntland sanadkan soo socda hadduu Ilaahay yiraahdo 2019 January 8 ugu dambeyntii xafladdaasi ayaa waxa ay ku soo gabagabooday jawi ay ka muuqatay farxad iyo taageero markaasi ay u muujiyeen musharaxa maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Dr. Maxamed Salaad Cali Qoryooley shire warsamo galbeedka telefishinka caalamiga ah ee Somali Cable magaalooyinka mataanaha ee dalka Mareykanka Minnesota shirkan jiraa'id uu maanta qabtay gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Jubbaland Maxamed Qaasin Cali Waxar oo ay garab fadhiyeen gudoomiye ku-xigeenka iyo xogayaha urur ayaa ku qotomay magacaabista golaha fulinta ururka saxafiyiinta Jubbaland ee judge gudoomiyaha ayaa sheegay in muddo 3 bilood ah uu waday la tashiyo ku aadan magacaabista xubnahan uuna garowsaday in muddada sanadka ah uu xilka hayn doono ay xubnahani la shaqeyn doonaan markaan arkay baahida loo qabo dhismaha golaha fulinta oo ka bixi karo howlaha adag ee muddada sanadka hor yaala ururka markaan la tashaday saxafiyiinta Soomaaliyeed ee Jubbaland waxaan xeeriyay xubnaha hoos ku xusan
in aan u magacaabo golaha fulinta ururka saxafiyiinta Jubbaland oo shaqayn doono muddo 1 sano ah oo soo socoto. gudoomiye ku-xigeenka ururka saxafiyiinta Jubbaland waxaan u magacaabay Fartuun Nuur Aadan. xogayaha guud ee ururka saxafiyiinta Jubbaland waxaan u gartay inuu noqdo Cabdulaahi Cabdiraxmaan Maxamed. qasnajiga ururka ee dhanka dhaqaalaha u qaabilsan waxaan u gartay Sahro Bishaar Cabdiraxmaan. xogayaha haweenka iyo xuquuqul insaanka ururka waxaan u gartay inay noqoto Farax Yuusuf Abdi. maareeyaha mashaariicda ee ururka saxafiyiinta Jubbaland waxaan u gartay inuu noqdo Cabdi Baraki Xasan. agaasimaha horumarinta iyo isgaarsiinta ururka saxafiyiinta Jubbaland waxaan u gartay inuu noqdo Mascuud Cabdulaahi Aadan. madaxa tababarada ururka saxafiyiinta Jubbaland waxaan u gartay inuu noqdo Axmed Cumar Saalixi oo ah nin oday ah qabiil saxaafadeed ah kuna sugan gobolka Gado. xiriiryaha gobolada ururka saxafiyiinta ahna agaasimaha diiwaangelinta saxafiyiinta waxaan u gartay inuu noqdo Cabdimajiid Cabbaas Aadan. waxaan ku kalsoonahay oo aan ayidsanahay in xubnahan kor ku qoran ay yihiin kuwa gudan kara waajibaadka shaqo ee loo idmaday ee ku aadan in ay gutaan howlaha shaqo ee hor yaallo ururka saxafiyiinta Jubbaland. gudoomiye Maxamed Qaasin Cali Waxar ayaa baaqooda shaqeyneed u diray wariyaasha Jubbaland, madaxda wasaaradda warfaafinta, qaybaha kala duwan ee bulshada Jubbaland, ururada saxaafadda dalka iyo dibadda. waxaan sidoo kale aan codsi u dirayaa laamaha kala duwan ee dowladda inay ugu garab siiyaan shaqooyinka horumarinta dhanka saxafiyiinta maadaama saxafiyiintu in muddo ay ku soo jireen hoggaan la'aan, taasna ay sababtay in ay noqdaan kuwo aan laga aqoonsanayn adduunka iyo dalka Soomaaliya. waxaan baaq u dirayaa ururada saxafiyiinta caalamka iyo kuwa saxafiyiinta Soomaaliyeed oo ugu horeeya ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed iyo dhammaan daneeyaasha dhanka saxafiyiinta ee Soomaaliya in maanta laga bilaabo. mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland ayaa waxay kormeer ay ku tageen goobaha uu saameynta uu ku yeeshay fatahaad webiga Jubba uu ka sameeyay deegaanada Jubbaland ka tirsan. wariyahana Maxamed Deeq Cabdi Alfa ayaa inoo soo diray warkan. iyadoo oo maalinba maalinta ka dambeysa uu ka sii darayo fatahaadda uu sameeyay webiga Jubba iyo qasaaraha uu gaarsiiyay ayaa waxaa arintaasi ka hadlay mas'uuliyiin ay ka mid yihiin gudoomiyaha gobolka Gado Maxamed Maxamuud Axmed, agaasimaha wasaaradda arrimaha gudaha ee Jubbaland Cabdiraxmaan Cabdi iyo wasiir dowlaha madaxtooyada Jubbaland Axmed Xasan. gudoomiyaha degmada Baar Dheere Cabdulaahi Nuur Xasan Cabdow ayaa ka warbixiyay qasaaraha ka dhalan karo fatahaadan uu sameeyay webiga Jubba. Waxaan taaganahay waa daanta galbeed ee magaalada Baar Dheere buundada dhinaceeda shishe. waxaan aad arkaysaan waa biyihii webiga oo webiga uu soo bixiyay soo fatahay. webiga Baar Dheere inta hoos imaado oo beera labada gedi waa sidaan oo kale way biyaha. matooradii qayb way qaadeen, qaybo yar waa laga badbaadiyay. dalagii dhammaan wax ka baxay ma leh. hadday basal lahayd, haddii moos uu ahaa, haddii maxaan ku raadaayo qudaar kale ay ahayd, waxyaabihii dhammaan oo maxaan ku raadaayo agabyada ahaa oo ka bixi jiray qudaarta beeraha jiimaha ka bixi jiray waa sidaan biyihii baa qabsaday. wasiir dowlaha madaxtooyada Jubbaland, gudoomiyaha gobolka Gado, agaasimaha wasaaradda arrimaha gudaha ee Jubbaland ayaa dhankooda sheegay in arintani ay u gurmadaan hay'adaha caalamiga iyo mas'uuliyiinta sare ee Jubbaland si gurmad loogu helo dadka ku barakacay fatahaadan uu sameeyay webiga Jubba. waxaan rabaa horta inaan idiin sheego xanuunka iyo dhibaatada tashigu waa innaga waana la idin iman doonaa, waana la kormeeri doonaa, annaguna fariinta waa geyn doonaa, dawladana waa gaarsiin doonaa iyo cid walba iyo shacbi weynaha reer Jubbaland oo dhan. alxamdulillaah
waxay la tahay waxa indhahanaga ka muuqda waa nimcooyinkii roobka ee Rabbi subxaanahu wa ta'aala uu nasiiyay kadib markii ayna soo mareen abaara muddo fara badan sidoo kaleeto waxaan jeclahay hay'aduhu ama cid kasta oo rabta dadkan insha Allah inay u soo gurmato gurmadka in lagu daro waxyaabaha inta badan daadadka keenaya waa dayactir la'aanta webiyada way kulley oo u jeedaan maanta marqaatibaad ka tahay dhibaatada halkan ka jirta runtii markii si loo fiiriyo waa barwaaqo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inoo keenay oo waajibna waa inaan ka faa'iideysano sida wasiirka uu sheegay iyo barasabkaba annagu mas'uuliyad badan baa shacabka naga saaran waxaan hadduu Ilaahay raalli ka noqdo abaabuli doonaa safar dhan oo dawli ah uu hogaamin doono madaxweyne ku-xigeenka koowaad dowlad goboleedka Jubbaland iyo wasaaradaha dhan waxaan kaloo runtii qaban doonaa hay'adaha caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah oo ka shaqeeya arrimaha bini'aadanimada iyo gargaarka inaan shirino runtii ajenda cad oo runtii si ay dawladdu garab istaagi lahaayeen shacabkan wax loogu qaban lahaa inaan soo saarno isbuucyadan horteena insha Allah ta'ala kismaayo markaan ku laabano maxamed deeq cabdi cali alfa telefishinka caalamiga Somali Cable Baardheere guud ahaan daawadayaal halka ayaan ku soo gabagabeynayaa warka telefishinka Somali Cable oo idinkaga imaanaya stuudiyaha magaalada Muqdisho aniga Maxamed Ciise Maxamuud ayaa idin la socodsiinaya warkan warka xigeentan ku kulmi doona nabadgelyo